shirkan ay isugu yimaadeen agaasimayaasha guud ayaa gogol xaar u noqonaya wada shaqaynta ka dhaxaysa agaasimayaasha guud ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo lafdhabar ah howlaha dowladda isla markaana kaabaya ama xoojinaya adeegyada ay dowladdu u qabato bulshada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta soo xiray shirka agaasimayaasha guud ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo Muqdisho ka socday intii u dhaxaysay 22 iyo 26 bishan Oktoobar ee sanadka 2019. shirku ah kii ugu horeeyay isugu yimaadaan agaasimayaasha guud ayaa dib loogu eegay guulihii ay gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo caqabadihii lala kulmay intii lagu guda jiray dhaqangelinta ajendayaasha iyo qorshayaasha hortabinta dowladnimada. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay agaasimayaasha guud shaqadii ballaarneed ay soo qabteen maalmihii ay u fadhiyeen shirka ay dib uga eegayeen waxyaabo u qabsoomay ugana tashanayeen qorshayaasha wasaaradaha ee hortabinta qaranka Soomaaliyeed. waxa uu ku dhiirigeliyay inay laba jibaaraan dadaalada ay ku horumarinayaan dalka isla markaana ay joogtayaan shirarka isugu imaanayaan. runtii halkan waxaa ka muuqday shaqo waafi ah inaad soo qabateen maalmihii aad ku mashquulsanaadaan inaad idinku isu timaadaan oo ka wada hadashaan shaqada dalku meesha ay marayso. inta badan waxaa laga hadlaa madaxweyne dowlad goboleed ama madaxweyne federaal ama ra'iisul wasaare ama wasiiro ama wasiir ku-xigeenno ama xildhibaano. laakiin shaqada dowladnimada lafdhabarteedu waa agaasimayaasha guud ee wasaaradda ama mid dowlad goboleed ha ahaato ama mid dowlad federaal ha ahaato. waa meeshii laga fulinayay waxqabadka dowladda oo aan rabo annaga iyo idinkuba aan isla fahamno isla ogaano. uma adeegtaan siyaasad, idinku waxaad u adeegtaan shacabka Soomaaliyeed. waxaad daacad u tihiin qorshaha dowladnimada oo aad u adeegtaan dadka Soomaaliyeed. waxaa ka madax bannaantihiin siyaasad, waxaa kaloo aad u shaqaysaan qaab loogu talagalay inaanu kala go'in qorshaha shaqo oo uu dalku ku socdo. sababta la rabo marka inuu agaasimuhu ka cimri dheer yahay wasiirka ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha waxa ay tahay inuu dheereeyo cimriga dowladnimada. shaqada laga rabana waxay tahay in shaqada wasaaraddu ay sii socon karto siyaasad walba oo dalka timaada. inaad isu timaadeen oo arrimahaas ka wada hadasheen marka waan soo dhaweynayaa. waxaa ka muuqatay halkan inaad ka wada hadasheen qorshaha qaranka, inaad ka wada hadasheen halbeegyada tubaha ku jira oo kala duwan, inaad ka wada hadasheen kormeerka joogtada ah ee shaqada socota iyo nidaamka cusub ay xukuumaddu u keentay, inaad ka wada hadasheen mashruucii ahaa ama shaqadii ku socon jirtay dalka qaab dabdamis in loo dhigo shaqo qorshaysan oo aad ka hadashaan sidee baa wax looga qaban karaa adeega caafimaadka 10 sano soo socota ama wax looga qaban karaa adeega biyaha dadka la siinayo 10 sano soo socota. waxaa muuqatay inaad ka wada hadasheen arrimaha deyn cafiska, arrimaha shaqaalaysiinta, arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaa muuqata marka inaad masaafo weyn ee dowladnimada aad isugu timaadeen inaad ka wada munaaqashootaan. waxaa laiga warbixiyey marka inuu shirkii maalmaha idiin socday uu ahaa shir fiican oo aad kala faa'iidaysateen. sidaas daraaddeed waxaan rabay marka ugu horeyso oo idinkugu imid inaan idinkugu hambaliyeeyo, inaan aaminsanahay inay tahay shaqo bilaaw ah oo aad ka heshiisaan inaad isku soo laabataan sanad walba hadday suurtagal tahay in ka badan mar sanadkiiba si la isugu soo dhaweeyo shaqada socota ee dalka ka socota. waxaan rabay marka inaan ka wada hadalno maadaama aad idinku hadda agaasimayaasha tihiin oo aad aragteen halbeegyada idinkugu jira qorshaha qaranka ama ahmiyadda 5 sano soo socota dalku uu leeyahay ama waxyaabaha tubaha idinkugu jira oo ah waxa hadda la rabo in la qabto ama qaabkii loo shaqeyn lahaa ama nidaamka halkan looga shaqeeyo dowladda federaalka
in la soo qaado la keeno dowlad goboleedyada. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.